asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula socodsiiyo dab xoogan oo hanti fara badan baabi'iyey oo ka holcayo qaybo ka mid a gobolka California. Gobolka California waa gobol kulul, waxaan ognahay sanad kasta xilliyada xagaaga dabab xoogan ayaa ka kaca, laakiin xilligan hadda qaboobaha lagu jiro kale inta badan lama arki jirin dabka cawalow. Inta badan California baraf uusan ka da'in meelaha buuraha mooyaane. dabkan ilaa iyo 4 meelood oo kala duwan oo gobolka California ayaa hadda dabka holcaya, laakiin waxa ugu daran dab shalay subaxdii ka qarxay Pacific Palisades meel la yiraahdo oo dadka ladan ay degan yihiin oo hantida leh, aktarada dadka caanka ah. gobolka California gaar ahaan Los Angeles waxaa ognahay Hollywoodka inuu ku yaalo oo dadka caanka ah aktarada iyo kuwa filimada sameeya dhammaantoodba ay halkaasi degan yihiin. marka dabkan Pacific Palisades ka qarxay oo dadka hantida leh oo ladan ay degan yihiin waxa uu baabi'iyey ilaa iyo hadda 1000 dhisme oo isugu jira guryo qaali ah ilaa iyo goobo ganacsi. guryaha hanti qaaliga ah waxay ka bilaabaan 5 milyan ilaa iyo 50 milyan guryo joogo amaba ka badan oo shalay waaga u bariyay iyagoo taagan, saaka waxa uu waaga u bariyay iyagoo gabi ahaanba dhulka ay la sinmeen. marka meelaha kale oo dabku ka holcayo waxaa ka mid ah Malibu, waxaa ka mid ah Pasadena, waxaa ka mid ah Altadena oo hadda 5 qof oo dabku ku dilay la leeyahay. marka dabkan markii shalay subaxdii uu ka qarxay midkan ugu badan ee holcaya Pacific Palisades markii uu ka qarxay, dadku waxay bilaabeen nafsadooda inay la baxsadaan. naftu oraday kugu aamintaa ma maqli jirtay. xitaa waxaan ognahay Los Angeles ama California ciriiriga ama saxmadu inay ku badan tahay maadaama dad aad u fara badan ay ku nool yihiin. dadkii markay arkeen in gawaaridii wadadii traffic uu jiro oo aysan mari karin, baabuurtii halkooga ayay ku damiyeen, kadibna waa ay ka carareen, lugahooda ayay ku baxsadeen. qaarkood wixii gacanta ay ku qaadan kareen caruurtii ayahoodii ayagoo gacmaha ku wato waad arkaysaan oo sii cararaya. marka baabuurtii wadada ayay uga dhex tageen. kooxihii dabdamiska marka xaggay marayaan oo doonaya dabka inay xakameeyaan waxay soo qaateen baldoosaro, kadibna baabuurtii oo qaali ah, baabuur BMW uu ku jiro, Tesla uu ku jiro, baabuur ay nooc baabuurtii dadkan dad lacag lahayn baabuur qaali ah ayay wataan. baabuurtii baldoos ayagoo sidoodii ayaa baldoos intay ku qaadaan kooxaha dabdamiska ayay wadada ka wareejinayeen si ay u gaaraan meelaha dabka uu ka socdo. bal saaka fiiri waaga markuu bariyay baabuurtii wadooyinka looga cararay waa kuwan ayagoo gabi ahaanba dambas noqday. qaarkood birtoodii ayaa milantay sidaad arkaysaan oo ay wadada laga dareemayo. marka ilaa iyo hadda dabka waa la xakameyn lahaa. sababta loo xakameyn lahayn kooxaha dabdamiska waxay yiraahdeen horta dab noocan oo kalaha taariikhda California ma aanan arkin ayay yiraahdeen. teeda kale dabayl xoogan ayaa jirto oo 100 mayl saacadii ku socoto. xitaa diyaaradihii dabka lagu damin lahaa waa la dejiyay saaka sababtoo ah ma duuli karaan. teeda kale waxay yiraahdeen meelihii biyaha ay ka qaadan lahaayeen kooxaha dabdamiska wadada dhinacooda tubooyinka yaalo fire hydrant waa aragteen, waxay leeyihiin biyihii pressure ma leh amaba biyaba kama socdaan. marka sidaa darteed waxay sababtay in dabkan uu sii faafo, meelo fara badanna uu dabkan gaaro. madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale saaka booqday Santa Monica, gudoomiyaha gobolka Gavin Newsom oo la kulmay. xaalad degdeg ah ayaana lagu baaqay gobolka California gaar ahaan meelaha dabkaasi uu ka socdo. qiica ka baxaya xitaa hawada magaalada Los Angeles aad ayuu u wasaqeeyay. airportka xitaa diyaaradihii waxay noqotay in hakad la geliyo. madaxweynuhuna waxa uu yiri dowladda federaalka ah waa ay caawin doontaa gobolka California. dabkana marka ilaa hadda maadaama duufantii ay yaraatay saacadihii u dambeeyay, kooxaha dabdamiska hadda dib ayay u bilaabayaan inay isku dayaan in ay dabkaasi damiyaan. laakiin meeshaasi waxaa ku baabaaday hanti qaali ah oo guryo nool inaysan hanti waxba ahayn. dad far inkastoo guryaha caymis ay ku jiraan qaarkood, inkastoo mid kamid ah aktaradana uu yiri waxaa jirtay in sanadkii bishii la soo dhaafay shirkadii caymiskayga ay kansashay. waxa yiri furaha gaariga aan wato iyo ookiyaalahaas intaan xiranahay ayaan gurigayga kala soo baxay. aktar hore ayuu ahaa, James Wan la yiraahdo. marka waxaa muuqanaysa marka hadda inay dib u bilaabeen inay dabka la damiyo, laakiin waa uu sii faafaya meelo kala duwan ayuuna ku sii faafaya. 1.5 milyan oo qof ayaa koronto la'aan gobolka California gaar ahaan meelaha uu dabku ka socdo. dadka qaar iyaga ayaaba nafsadooda la baxsaday, qaarka kalena waa la daadgureeyay. ilaa waxaana laga yaabaa dhimashadu inay kororto maadaama dabkan uu sii faafayo. waxyaabaha kale ee ka soo kordhay haddii aan leedmo waa idila soo socodsiin doonaa asxaabay. aad iyo aad u mahadsantiin.